kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulan wareedka raadiyo magan barnaamijka wuxuu toddobaadkan idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho qodobada aan idinku hayna barnaamijka kulan wareedkana waxaa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya oo shaaciyeen al-shabaab afduubteen dad ku dhaqnaa deegaanka aadan yabaal ra'iisul wasaare Xamse oo la kulmay wakiilka midowga Afrika ee ATMIS madaxweyne Deni oo wajigabax la kulmay kadib dalab ku aadan arinta koonfur galbeed oo hordhigay madaxweyne Xasan Sheekh maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaalka dhana al-shabaab shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis ay isku cikaraan kooxo abaabulan oo bilaabay faagista qabriyo ku yaala deegaanka Taleedisho dhagax aan noociisa horay dunida looga arkin oo laga helay Soomaaliya sidoo kale warbixinada gaarka ee barnaamijka kulan wareedkan idinku haynana waxaa qayb ka ah sabab la sheegay in dumarka dunida ay kaga oohin dhow yihiin ragga kama marna xubnihii ciyaaraha iyo xog sheeko waad ku maqli doontaan gudaha kulan wareedkeena anigu waxaan ahay Xasan Elkaasi u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran imisa rafaado raadinaysay meel runta lagu hayo raadiyo magan baarugteena timi rafiiqeeda noqo marulmaystiri noqo wariye maamula mareegto malaayiin qof maanka ku hayaan riyadaas rumowdo raadiyo magan baa ku rumaysay orodo horogar raadiyo magan waxay ka haqabtiraysaa barashada saxaafadda qaybeeda kala duwan haddaba kala xiriir barta Facebook ee raadiyo magan waa hagaag aan u talnaabno barnaamijkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka warbixiyay dhacdooyinka ugu dambeeyay ee degmada aadan yabaal suxuufiyad Nihaal Axmed ayaa qodobkaasi faahfaahinaysa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay khudbad u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda wadanka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadal jeedintiisa diiradda ku saaray guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka iyo qabashada degmada aadan yabaal ugu horeen wuxuu bogaadiyay ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee dagaalka adag kula jira kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inay garab taagan tahay dawladda madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay maanta xor tahay degmada aadan yabaal wuxuuna xaqiijiyay in ciidamada ay si nabadoon kula wareegeen degmadaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in al-shabaab ay burburiyeen ceelashii biyaha ee ku yaalay degmadaasi isla markaana ay horay u sii afduubteen shacabkii deganaa halkaasi ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed wuxuuna ka dalbaday in shabaab kadib ay u diyaar garoobeen dib u dhiska wadanka ra'iisul wasaare Xamse oo la kulmay wakiilka midowga Afrika ee ATMIS Cabdullaahi Daahir Maxamuud ayaa isha sii maray qodobkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee guddiga midowga Afrika ahna madaxa ATMIS Sof Mohamed Al-Imani kulanka ra'iisul wasaare Xamse iyo Danjire Sof ayaa waxaa si gaar ah looga hadlay arrimaha amniga dadaalada dib u xoreynta xasilinta iyo doorka ATMIS ee dagaalka lagu cirib tirayo kooxaha argagixisada madaxa ATMIS Sof Mohamed Al-Imani ayaa intii uu kulanku socday wuxuu dawladda ugu hambaliyay guulaha la taaban karo ee ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay ka soo hooyeen dagaalka lagula jiro al-shabaab gaar ahaan guushii ugu dambeysay ee argagixisada looga xoreeyay degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyntiina waxa uu ciidanka midowga Afrika uga mahadceliyay doorkooda dhismaha nabadgelyada dalkeena madaxweyne Deni oo wajigabax la kulmay kadib dalab ku aadan arinta koonfur galbeed oo hordhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu qodobkaani ku faahfaahinaya Cabdikaafi Maxamed Muqtaar waxa ay soo tiriyay xogo laga helay kulankii shalay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ku dhaxmartay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Sida Abdullaahi Deni kaasi oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan sida la xaqiijiyay madaxweyne Xasan Sheekh oo ku gacan sayray Siciid Deni oo ka ogolaaday inuu dibad joog u ka noqdo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed Deni ayaa sidoo kale waxa uu weydiistay madaxweynaha Xasan Sheekh inuu xakameeyo siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfur galbeed ee ku sugan Muqdisho kuwaas oo ku horeeya agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud xogta laga helay ayaa sheegaysa in Xasan Sheekh uu ku adkaysto in dowladda federaalka mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shuruucda dalka ay ku jiraan maamulada sidaas darteedna uusan aqbali karin
dalabkaas ay deni ay ka wada socdeen Laftagareen. Siciidan ayaa sheegay in Laftagareen uu ka rabo xildhibaanada federaalk ee laga soo dooranayo Koonfur Galbeed sida ugu sare kaco rajada iyo damaciisa musharaxnimo ee mar kale uu soo taagayo xilka ugu sarreeya Soomaaliya 2026. Deni waxa uu qorshaha uu ka wada socdaan Laftagareen waxa uu la safrayaa si uu u helo iskaashi la mid ah kii hore uu la galay Axmed Madoobe oo muddooyinka ugu dambeeyay xiriirka kala dhexeeyay uu xumaaday ayay yiraahdeen ila wareediyaan muhiim ah. Kulankii shalay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Deni ayaa gebi ahaanba ku soo dhamaaday natiijo la'aan iyadoo sidoo kalena isfaham laga gaari waayay labadaas dalabaad kale oo uu watay madaxweynaha Puntland. maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab wariye Naseexa Maxamed Xirsi ayaa qodobkaasi sii dhameystiraysa. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maanta dib ugu soo laabtay dalka ayaa gudoomiyay shir degdeg oo laga hadlayay amniga deegaanada Koonfur Galbeed. Shirka ay iskugu yimaadeen saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan ayaa wax laga soo saaray go'aan degdeg ah howlgal dagaal ka dhanka Al-Shabaab lagu bilaabayo deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka Baay. Shirka waa kama dambeys awaamir ayaa la kala qaatay oo fulinteed hadda ay ku dhaqaaqayaan. Waxaa lagu go'aamiyay shirkan howlgal degdeg ah ay ka bilaabi doonaan gobolka Baay. Saraakiisha shirkan ka soo qayb gashay oo kala ah taliyaha booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliyaha booliska gobolka Baay, taliyaha saldhigga Baydhabo, taliyaha ciidanka madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo saraakiil ka socotay ciidanka xoogga qaybta 6aad ayaa waxa uu madaxweynaha Koonfur Galbeed faray in sidoo kale la balaariyo howlgallada ka dhanka ah cadowga. howlgallada dagaal ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo muddadii u dambeeyay iska kaashanayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxa laga gaaray guulo waaweyn iyadoo cadowga laga xoreeyay deegaano dhowr ah oo ay sanado badan gacanta ku hayeen. shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis cusub oo isku wici karaan. wariye Cabdisalaan Maxamuud Maxamed ayaa la diyaaraa. hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis sahlaya isku xirka shirkadaha isgaarsiinta kaasoo suurtagelinaya inay isku wici karaan shabakadaha bixiya xiriirka taleefanada ee ka jira dalka. heshiiskan ayaana dhigaya in xiriirka taleefanada ee shirkadaha isgaarsiinta la isku furo wixii ka dambeeya 10 Janaayo 2023 iyadoo la dhamaystiri doono isku xirka dhammaan shirkadaha Febraayo 2023. war-saxaafadeedkan lagu shaaciyay heshiiskan ayaana lagu sheegay in arrinka isku xirka moobilka ay tahay hawl sharciyeed wadatashi iyo farsamo wadajir u baahan, sidaa darteedna loo galay kulamo iyo wadatashi waqti dheerna qaatay balse natiijo laga gaaray. heshiiskan oo ay wadajir u saxiixeen maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Mustafa Yaasiin Sheekh iyo madaxda shirkadda isgaarsiinta waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo xafiiska garyaqaanka guud. ku baro saxaafadda si fogaan darsiyeed ama online adigoo jooga gurigaaga ama goob walba. ma tahay qof ku dhiban fikirka dhiibashada dadka hortooda mise jeclaan lahayd in aad awood u yeelato in aad dadka hortooda ku soo bandhigto waxa aad muujinayso? ma ahayd qof hami sare ka leh inuu noqdo suxufi wax soo saar leh oo xirfadiisa u qarsoon u bandhigi kara bulshadiisa? ma ka mid tahay arday hore saxaafadda u soo bartay balse aanan helin tababarkii uu u baahnaa? intaas iyo inka badan waxaad ka heli kartaa adigoon isdhibin waqti iyo tirsboorna kaa bixin ayaad ku baran kartaa saxaafadda. waxaana kuu fududeeyey tilmaamahaas macadka fogaan darsiyeedka iyo tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan. haddii aad danaynayso ka mid noqoshada dufcada cusub ee la diiwaangelinayo waxaad kala xiriiri kartaa tirsimaha kale ah #682 34 ama #612 haddaba noqo baraha qarsoon ee bulshadiisa, taasna waxaad ku gaari adigoo si bayaan ah u barta barashada mihnada saxaafadda. dhanka kalena markaan waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaana la diyaaray wariye Saabir Maxamed Ibraahim. kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha ee barnaamijka kulan wareedka
Pochettino ayaa ku tilmaamay Kylian Mbappe ilmo maadaama uu sheegay in xiddiga reer Faransa uusan maamulin Paris Saint-Germain. Mbappe ayaa ciyaaray kulankii Liverpool 3 ciyaar ay kaga badiyeen Poland wareegga 16aad ee koobka adduunka asagoo dhaliyay 2 gool si uu caawiyo Faransa. 23 jirkan ayaa haatan hogaaminaya goolinta tartanka asagoo dhaliyay 5 gool wuxuuna guud ahaan goolashaasi ee koobka adduunka ka dhigeen 9 gool. Pochettino ayaa Mbappe ku soo maamulay PSG ayaa amaanay weeraryahanka laakiin waxa uu sidoo kale ugu digay garnimadiisii taasoo adkeynaysa in 6 kulan oo naftiisii maamulo. mar la weydiiyay haddii Mbappe uu gacanta ku hayo PSG, Pochettino ayaa ugu jawaabay aniga ahaan run ma ahan 23 jir wuxuuna horey ugu guuleystay koobka adduunka waa karti la yaab leh laakiin dhibaatadu waxa ay tahay mararka qaarkood waxaad u baahan tahay in aad naftaadii maamusho. dhinaca kale Raheem Sterling ayaa ka duulay dalka Qatar kadib markii tuugo hubeysan ay u dhaceen gurigiisii qoyska. Raheem Sterling ayaa seegay koobkii adduunka England ay kaga badisay Senegal kadib markii gurigiisii qoyskiisii ay weerareen tuugo hubeysan. Tobraha 3 libax Gareth Southgate ayaa xaqiijiyay in 27 sano jirkan oo u safray gurigiisii UK si uu la joogo qoyskiisa waxyar ka hor ciyaarta taasoo England 3-0 ay kaga badisay si ay u soo xaqiijiyaan booskoodii wareegga isdeeda. waxaa la sheegay in hantida ku taalay Suuriya la beegsaday habeennimadii Sabtida waxaana la soo wargeliyay garabka Chelsea subaxnimadii hore ee Axadda sida laga soo xigtay David Garvey ee lamaanaha Sterling iyo cunug yar ayaa ku sugnaa guriga intii uu socday weerarka. Southgate ayaa rajeynaya in ciyaaryahankii hore ee Sterling uu diyaar u yahay inuu ciyaaro wareegga sideeda ee France Sabtida. inkastoo uu maamulaha England uusan hubin in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara oo uu soo laabo doono Qatar iyo in kale. ugu dambeyntii haligayga Manchester City Aguero ayaa sheegay in Messi sidii ugu adkaan lahaa Virgil van Dijk koobka adduunka. Sergio Aguero ayaa talo wax ku noolaasiyay saaxiibkiisa Lionel Messi. Aguero ayaa lagu qasbay inuu ka fariisto shaqada kadib markii uu City ka tagay sababo caafimaad daraadood asagoo sidoo kale soo gaabiyay xirfadiisii Argentina. natiijo ahaan wuxuu taageero u yahay koobka adduunka Qatar iyo saaxiibadiisii hore ee caalamiga ah iyagoo gaarina wareegga 8 guushii wareegga 16aad ee ay ka gaareen Australia. Argentina ayaa wajihi doonta Netherlands dhamaadka iyadoo labada ciyaaryahan ee City Jules Alvarez iyo Nazi Ege ay midka kale iswajihi doonaan. Aguero ayaa ka tirsanay qabiirnimadiisa ay ku aadan inuu ka hor yimaado xiddiga reer horena si uu Messi ugu soo jeediyo si uu wajihi lahaa wareegga dhamaadka. wuxuu sheegay ESPN Argentina asagu Van Dijk ma degdegsano luga dheer buu leeyahay waa inaad ku mashquulisaa wax kale qof si uu ugu qayliyo asagoo ka soo baxaya tarbuunka. haddii aan halkaasi joogo waxaan bilaabi doonaa in aan ka hadlo isaga halkaasi. guud ahaan xubinteennii ciyaaraha halkaasi ayaa ku soo gabagabay doonaa anigoo Saabir ayaa idin waramayay idinku celiya barnaamijka kulan wareedka iyo qaybaha ka harsan. aan intaasi kaga toloobno xubintii ciyaaraha markaana aan u laabano kulan wareedkeena. waxaa abaabulan oo bilaabay faagista abriyo ku yaala deegaanka Tareedisho si ay u boobaan dhul halkaasi ku yaala. Nimco Aadan Cilmi ayaa warkaasi la diyaara. in ka badan 30 sano meedad ku aasanaa qubuuraha Macalin Nuur ee deegaanka Tareedisho ee dowladka Muqdisho ayaa lagu bilaabay in dib loo faago iyadoo aan la ogeyn cidda faagayso iyo sababta loo burburinayo qubuurahaas. gabar uu dhalay caalinkii weynaa ee Macalin Nuur oo 10 sano ka hor sadaqaystay dhulka ay ku yaalaan qubuurahan ayaa warbaahinta u sheegtay in aysan garanaynin cidda ka dambaysa falkan. gabadhan waxay sheegtay in reer Macalin Nuur aysan waxba ka ogeyn falkan balse ay sameynayaan dad uu hunguri ka galay dhulka ay qubuurahan ku yaalaan. sidoo kale waxaa halkaas tagtay koox dhalinyaro ah oo ka socda qoyska reer Macalin Nuur waxayna warbaahinta u sheegtay inay ka hortagi doonaan falkan wixii hore u dhacana ay saxayaan oo qubuuraha la qoday ee dib u aasayaan. warbaahinta maxalliga ah ayaa soo bandhigtay in burburinta lagu sameeyay qubuurahaas oo dhulkooda sadaqaystay caalimkii weynaa ee Macalin Nuur iyadoo banaanka la soo saaray meydadka dad la aasay 10 sano ka hor.
qubuurahan oo aada u baaxad weyn tobanaankii sano ee lasoo dhaafayna dadka ku geeriyooda lagu aasay ayaa ku yaala deegaanka Tareedish oo dhaca inta u dhexeysa Muqdisho iyo Ceelasha Biyaha waxayna caan ku yihiin magaca qubuuraha Macalin Nuur. dhagax aan noociisa horay dunida loogu arkin oo Soomaaliya laga helay. wariye Fuad Cusmaan ayaa qodobkaasi qaadaa dhigaya. cilmi baarayaal u dhashay dalka Canada kana tirsan jaamacadda University of Alberta ee gobolka Calgary ayaa shaaca ka qaaday inay ka heleen laba macdan oo aan hore dhulka loogu arag muunad dhagxaan 70 garam oo laga soo qaaday cirka soo dhac laga helay miyiga Soomaaliya. dadka dhagaxyada qaaliga ah baadi gubay ayaa Sebtembar 2019 aqoonsaday dhagax cajiib ah kadib u diray gobol ka mid ah dalka Kenya si loo baaro hase yeeshee sheekada dhagaxa dhifka ah ayaa sii fiday kadib markii saraakiisha amniga dowladda federaalka ah ay gacanta ku dhigeen cirka soo dhacyo samada hore maalin kasta ay meel ka dhacaan dhulka inkasta oo waxa tobanaya tan ka badan ay dhif yihiin badanaaba waxa dhagaxa u eg kuwa dhulka ama se waa wax ka kooban bir iyo birlab soo jiita birta. dooxa ceel cali oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle ayaa laga helay cirka soo dhac cajiib ah. ceelku wuxuu Muqdisho ka xigaa dhanka waqooyi masaafo dhan 200 kilomitir inkastoo dhagaxa uu soo gaaray cilmi baarayaasha 2 sano ka hor 2020 haddana suugaanta deegaanka ayaa muujinaysa in ka fac weyn yahay 5 shil. xoolo dhaqatada dooxada ceel cali ayaa dhagaxa oo ka samaysan 90% bir iyo birlab u isticmaala mindi afaysi. suuragal ma aha in loo ogaado qiimaha dhagaxa balse Professor Held oo inuu ku dhow 10 sanadood la weydiinayay inuu kala sooco dhagaxyada cirka soo dhaca ayaa sheegay inay heleen war sheegaya in dalka Shiinaha looga raadinayo iibsadayaal. dhanka kalena markaan waxaan soo qabanayaa xubintii xog sheeko waxaa la diyaaran nasteexo. waa hagaag markaana waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka kulan waraadka raadiyo magan aan soo qabto kusoo dhawaada xubinteena xog sheeko maanta inii warameysay anigoo Nasteexa Maxamed Xirsi. waxaan maanta kusoo qaadanaa qiso yar cajiib waxa u dhacaysa sidatan. waxaa laga sheekiyay waqti hore in boqor uu dowladiisa ku amray in ruuxii kelmad wanaagsan ku hadla la siiyo 400 diinaar. haddaba maalin asagoo magaalada ku wareegaya ayaa waxa uu arkay nin oday ah beeraley ah oo beerinaya geedka saytuunka loo yaqaan. boqorkiiba waxa uu ku yiri odaygii maxaa u abuuranaysaa geedka saytuunka ah ayadoo u baahan tahay 20 sano si ay miro u dhalo adiguna 90 jir ayaa tahay. ajijaadu soo dhawaatay oo waa gowday. odaygii beeraleyda ayaa yiri kuwii inaga horeeyay way abuureen inaguna waa goosanay inaguna waa abuureena si ay u goostaan kuwa soo socda. intaa kadib boqorkii ayaa yiri waad wanaajisay hadalkaagu waa kelmad wanaagsan. markaas ayuu amray in la siiyo 400 diinaar. haddaba odaygii 400 diinaar markuu qaatay ayuu dhoola cadeeyay. boqorkii ayaa weydiiyay maxaa u dhoola cadeysay. odaygii beeraleyda ayaa yiri geedka saytuunka 20 sano kadib ayuu miro dhalaa anigana geedkayga hadda ayuu miro dhalay. haddana boqorkii ayaa yiri waad wanaajisay. haddana waxa uu amray in la siiyo 400 diinaar. odaygii wuu qaatay lacagta haddana waa uu dhoola cadeeyay. boqorkii ayaa misna mar labaad weydiiyay maxaa la dhoola cadeysay. odaygii baa yiri geedka saytuunka sanadkii hal mar ayuu miro dhalaa anigana geedkayga 2 mar ayuu miro dhalay. boqorkii ayaa yiri waad wanaajisay wuxuuna amray in la siiyo 400 diinaar oo kale. kadib boqorkii si dhaqso ayuu uga soo tagay odaygii beeraleyda ahaa. askartiisa ayaa weydiiyeen maxaa uga soo carartay ninka odayga ah. boqorkii baa yiri haddii maanta dhan ag joogo khasnadahayga maalka ah ayaa dhamaanayo ninka odayga ah hadal wanaagsan ma ka dhamaanayo asaga. fiiro gaar ah walaalayaal haddii boqorkaasi uu yiri ruuxii erey wanaagsan ku hadla waxaan siinayaa 400 diinaar. kadibna uu ninkii odayga ahaa 3 jeer marka uu siiyay markii afraadna uu ka soo cararay si ay khasnadiisa u dhamaan. ka waran Allah subxaanahu wa ta'aala oo khasnadiisa dhamaanaynin oo ku ballan qaaday wanaag walba aad sameeyso inuu kugu ajar siinayo misna wax ka sii wanaagsan oo kugu bedelayo ajarka aakhirana uu gaar ku yahay. waato Allah subxaanahu wa ta'aala yiri halkii xasanaad aad sameeyso ayaa idinku abaal marinayaa. ayareysan khayrka weliga uu miro dhalayaa. kelmad wanaagsan oo aad walaalka ku tiraado haba ahaatee. halkaas ayaan ku hakinaa xubinteena xog sheeko maanta inii warameysay anigoo Nasteexa Maxamed Xirsi.
aan soo qabto dhanka warbixinada gaarka ee barnaamijka. Sabab la sheegay oohinta dumarku ay qayb ka qaadato soo jiidashada naxariista iyo soo dhawaanshaha. Waxaa warbixintaasi soo jeedinaya wariye Maxamed Aadan Cali. wax walba waxa ay u noqonayaan abuurta Ilaahay, sidaas oo ay tahay bini'aadamku inuu wax baaro waxna ogaado waa qayb ka mid ah dabcigiisa. marka la sameeyay cilmi baaris waxaa la arkay inay dabcigoodu ku samaysan tahay inay qeyroodaan kadibna ilintu ka daadato. waayihii hore laga soo bilaabo rag way ugaarsi tegi jireen, dumarkuna mas-uuliyadda carruurta ayay hayeen. arrinkan uu u saaray haweeneyda inay akhrin karto dhaqdhaqaaqa ilmaha iyo oohinta iyo waxa ay rabaan. dumarku waxay leeyihiin baahi ka weynta ragga oo ku dhex jirida bulshada ama la yeesho xiriir nafsi ah. taasina waxay keentay inaysan hayn karin dareenkooda, sidaasna ugu khasab tahay. dadka culumta ku takhasusay waxay leeyihiin dumarku waxay ku gaadheen heerka naxariista dhexdooda oo aada u sarreyso. oohintu waxay kicisaa dareenka qofka bini'aadanka, waxayna asal ahaan ka timaadaa cunuga yar oo raadinaya inuu helo feejignaanta hooyadii. baaritaan arrintan la xidhiidha oo ka dhacay dalka Jarmalka waxa uu sheegayaa in dumarka inta badan ilmeeyaan marka ay ku fikiraan arrin murugale ka hor inta uusan qofka bini'aadanku gaadhin 13 jir. isku in baa la ooyaa oo ragga iyo dumarku waa isku mid. wixii intaa ka dambeeya dumarka ayaa oohinta ku badan. haddaba ma ogtahay in dumarku ay oohinta u fiican tahay oo haddii ay murugada la weydo ay caafimaadkeeda wax weyn iska bedelayaan, laakiin marka ay oydo ay kala yaraanayso murugada oo ay hiloobayso qayb ka mid ah murugada. guud ahaan waxaan soo gaaray dhammaadka kulan wareedkeennii maanta. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Xasan Ilkacaasi. waxaa barnaamijka soo saaray iina farsameynaya mahad ka gaartay al-ustaad Ismaaciil Sitoosi. bahda Radio Magan oo isku duuban oo idinkaga tagaysa intaan barnaamij caynkan la mid ah ku kulmi doono. waxaa idinkaga tegnaa sidaas iyo amaan Allah.